السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودyaal channelka naga daawanaysaan waxaa lana official fadlan haddaad ku cusubtahay subscribe sar haddaa hore noola joogtaan share like comment wamaasantiin soo dhawaada. maanta waxaan halkan kugu haynaa aan rabaa inaan ka hadlo barnaamij maalmihii u dambeeyay aalada TikTok qabsaday YouTube-ka oo dad YouTube camal ka soo hadlaysan filayo. waxaan rabaa inaan barnaamijkaas falanqeyno reaction ka bixino. barnaamijkaas waxaa waaye boqorada styleka iyo Ilo official maxaa ka dhaxeeya boqorada styleka iyo Kamal maxaa ka dhaxeeya saddexdaas qof rabaa inaan kala saaro. ku soo dhawaada fadlan hadda channelkeen ku cusubteen subscribe saara haddaa hore noola joogtaan share like comment soo dhawaada. marka video aan rabnaa isla fiirin waa videogan. videogu waxaan jeclaa video aroos inuu yahay qaabsaas u muuqdaa qaabka oo suuq u soo galan. videogu waa video aroos ciilow iyo boqorada styleka is aroos camal TikTok-gana saas looga shidan fahantiin. marka videoga isla fiirinaa soo dhawaada. videogan bilaabeynaa. xariifku waa baxba qofti gacanta soo qabsada ma fahantiin. dadku waa ka waalay marka ku soco. kaala iska arag video si la iskula dheeraayo waa labisan yihiin. xafladan waxaa waaye xaflad si qaab oo qof baashaal ama loo dhigay laakiinse saan dareemayo suuq waxay kusoo gashay sida xaflad aroos isku waara wax saasa hambaliyo suuq loo soo geliyo xataa Instagram-ka ku arkay. marka videoga aan ku socono. sheekada saas ku dhamaatay. videoga aan raba marka inaan fiiriya wuxuu yahay video asiga oo ayada ay soo dhigtay videoga ayada soo dhigtay oo ay sawirada heesta dul saartay. marka heesta waxay ka turjumaysaa fiirinayna ayadana ku soco. hadda dhacaya dhawaan arooskeena hadda dhacaya heestii u dambeysay shalay uu soo qaado. marka su-aasha meesha taala waxay tahay maxaa ka dhaxeeya Kamal Cabdul iyo boqorada styleka. sababto arinta keentay oo suuq u soo gashaa waxay tahay xafladii wiilkan gabadhan la joogtay xaflad aroos in aroosta in kalma sheegi karno laakiin arinta nuxurka ama xoog aan saarayna waxay tahay arinta Kamal Cabdul gabadhan iyo asiga maxaa ka dhaxeeya sida xalan loo xaqiijiyay oo dhalinyarada TikTok ay noo xaqiijiyeen xiriir ka dhaxeeyay waa isku boodeen xafaantan. markay isku dhaceen kulay waa aragteen marina dhowr horumar oo soo qaatay YouTube-keeda boqorada styleka hawada naga qabsatay boqorada styleka alla hadeysto. laakiin ninkii hadda macnaha qaxootiga ku soo galay wadanka oo Sacuudi laga soo tahriibiyay laga soo tarxiilay oo qofti gacanta ka qabsaday Kamal Cabdul arintaas wuu ka soo hadlay. asigana waa isla fiirinaynaa. videogan macnaha video waxa waaye oo waa baxa oo macnaha markuu arko qoftii gacanta laga qabsanaa waa baxa. arintaas waxay ka dhigan tahay arin inuu ka xanaaqa ah. marka ninka la yiraahdo Kamal Cabdul qofta 10 mar oo soo qaatay sawirada inta idin soo saari doona sawirada 10 mar oo soo qaatay in ka badan say ayada ay ku cadeysay TikTok-geedana inay aroos tahay macnaha isaroosi rabaan ku cadeysay. ilowna sidoo kaleeto waa loo soo hambaliyay dad badan oo caan oo TikTok-risa u soo hambaliyay. marka Kamal Cabdul waxaan rabnaa inaan fariin uga dirno meeshaan. Kamal Cabdul waxaan leenahay qoftaan calaf doosa ku galin horta ma helisid xiriirkiina hadduu dhamaadana inaad ku dheganaatid oo maalin kasta aad dhahdid boqorada styleka sanad boqorada styleka heestaan saan tiri waa laga fiican yahay. marka waxaan ku leenahay gabadhaas inaad ka dhamaatid kaarna gabadha haddii aad xiriirkiina dhamaado wiilkan xiriir u galay dee awlowga gabar waa la iska dul qaadi jiray. inaad toosh ka daba qaadato waa laga fiican yahay. asagana ciilo waxaa waaye soo dalka ka soo dawarto waxaa wax laga xumaada ah
adoo shalay guriga deganaa lagaa saaro guriga lagugu qabsado waa wax laga xumaado aada weyn. marka Kamaal Cabdul waxaa waaye meeshaan waxaan u diraynaa murugo maadaama qoftii laga aroosay. Kamaal Cabdul gabadhan 10 mar oo soo qaatay inuu xiriir ka dhaxeeyo xataa dadka saqirka la dhashay oo commentiga uu soo qoraya waxaan arkay meelo badan lagu meeshin gareeyay oo la leeyahay Kamaal Cabdul bye bye qaal wata qoftii indhaha gooshanta asiga uu ka soo hadlay videogan doo arkay inuu waxaan rajeynaa inuu ka hadli doono oo jawaab ku bixi doono maxaa in ka dhaxeeyo waa su'aasha meesha taala. nuxurka su'aasha videoga waxaa waaye xiriir in ka dhaxeeyo qoftaas boqorada isteelka mase baashaal waaye 2 maaha 3 maaha 4 maaha in ka badan oo soo qaata boqorada isteelka YouTube qof saas YouTube kale u dhigana waa yar yahay marka laga soo tago Drisleey si geeyo marmar isjafay rashka boy Drisleey bar isku dhigay maaha dagaalna maaha xanaaqna maaha si macnaa sarbeeba loo soo qaadana qoftan haystaan jeclaysiisa qoftan saana yeeshay waxaas wax laga fiican yahay waay. marka waxaan rajeynaynaa inuu arrintaas ka hadli doono sidoo kale jawaab degdeg ah waxaan rajeynaynaa inay ka bixin doonaan boqorada isteelka iyo ciilo wada jira si ku cadeeyeen ciwaanadooda TikTok-ga. waa maasantiin asxaabta video intaan ku eegay soo dhawaada hadda channelka cusub ta like saar share comment subscribe inta wiilku waa wiilkiini soo dhawaada.